السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halkaad naga daawanaysaan waa TV-ga caalamiga ee bulsho barnaamijkan waxaan ugu talagalay waa barnaamijka su'aalaha ee bulshada qaybaheeda kala duwan aan ugu talagalay barnaamijkan daawadayaal wuxuu noqon doonaa barnaamij aad u xiiso badan oo isugu jira su'aalo diini iyo maadiya si ay dadku uga faa'iideystaan bulshada ku nool gobolka Togdheer waxaanan jecelahay inaan su'aalahaas dadka aan weydiino annagoo hadba qof doonayna inaan su'aashaas weydiino السلام عليكم وبرشده إن كميدا ولا المجاعة مجاعة ولا روح لا فيصل عبد يوسف فيصلوا برنامج كان وحوي برنامج سؤاله وحمل جلسي برنامج كان ونفضي عروض عنك إلى هذا السلامة فاشيون ستايل أو يبصر درك الرجع عروضها هذا برنامج كان وحن لقى فايدة سنة سؤال بالروايين كويدينه سؤال شاهدت كتشوفت واحد هليسا العق أبال مرينا برنامجكينا وينو بلاميا سؤال شبان كودينا فيصلوا سفيان waxaan isku dayaa inaan helo aan ku guuleysto Sufyaan Abduli aad buu mahadsan yahay su'aasha koowaad ku weydiinaya waxa la yiraahdaa maxaa loo yaqaanaa ama loo yaqaana oo la yiraahdaa raxanta garanugta horta baala xaga dhaqanka kulay bulshada ma loo dhiibanaya mid sidii shaxli miyaan nooc miyaan aday ku taagantahay waa si wanaagsan war raxanta garanugta waxa la yiraahdaa war raxanta garanugta sheegaysa ma garigi dhaadheeraad horta sheegaysa mise garanugta yada gaagaaban raxanta garanugta maxaa loo yaqaanaa jamaca markay tahay hadda war raxan garanugeedun daawadayaal su'aasha Faysal uu garan waayay waxaan jecelahay bulshada qaar kale oo kamid ah inaan weydiino daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa TV-ga caalamiga bulsho waxaan ku jirnaa su'aalihii walaal magaca Ahmed Wali Lola Ahmed Said Ahmed Said oo barnaamijkan waa barnaamij ay noo suurta gelisay oo laanteed aanu socdeen carwada leedo Salama Fashion Style oo ku taala magaalada Burco iibinta dharka su'aal baa lagu weydiinayaa su'aasha haddaad ka jawaabto waxa lagu siinayaa abaalmarin lacageed diyaar ma tahay diyaar baan ahay su'aashan ku weydiinna waxa weeye sheeg haweeneydii ugu horeysay ee ka shahiida islaamka magaceedii wallahi taa magaceedii ma hayo imika iskala kuma hayo daawadayaal su'aasha uu garan waayay halkaad naga daawanaysaan waa bulsho TV-ga caalamiga walaal magaca raaga baasha Cabdullaahi Belada raago waa barnaamijka su'aalaha ee ka baxa TV-ga caalamiga ee bulsho waxaana noo suurta gelisay carwada caalamiga Salama Fashion Style magaalada Burco dharka iibinta su'aal baa lagu weydiinayaa haddaad ka jawaabtid waxa lagu siinayaa abaalmarin diyaar ma tahay diyaar waxaad sheegtaa inta jeer ee quraankeena kariimka lagu xusay nabi aadam calayhi salaatu wasalaam waxa lagu xusay 2 jeer waa garan waayay su'aasha daawadayaal weli waxay noo socday barnaamijka oo ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ee bulsho TV daawadayaal weli waxa noo socday su'aalihii walaal magaca aniga waxa la dhahaa Cabdi Burco magacii magaalada waad qaatay barnaamijkan waa barnaamijka su'aalaha qofka su'aasha ka jawaabana waxa la siinayaa abaalmarin uu ku farxo waxaanu si toos ah uga daawadaan dadweynaha su'aalahan TV-ga caalamiga ee bulsho su'aasha Cabdi Burco diyaar ma tahay diyaar baan ahay waxaad noo sheegaysaa hadda waa su'aasha sheeg waxa loo yaqaano tingaad waa ereyga tingaad wuxuu noqon karayaa ereyga tingaad haddaan macneeyo wax gaaban buu noqon karayaa su'aashii wuu garan waayay daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa bulsho TV waana barnaamijka su'aalaha waxaa noo suurta gelisay carwada Salama Fashion walaal magaca Jamaal Maxamed Ali jamaalow waa barnaamij si toos ah dadka su'aalo loogu weydiinayo oo ay ka daawanayaan TV-ga caalamiga bulsho waana su'aalo diini iyo maadiya waxaana noo suurta gelisay carwada Salama Fashion Style ee magaalada Burco iibinta dharka ragga iyo carruurta su'aashaas diyaar ma tahay jamaal waxaad noo sheegtaa inta jeer quraanka kariimka lagu xusay nabigeennii aadan calayhi salaatu wasalaam waa 14 wuu garan waayay jamaal daawadayaal barnaamijku inoo socdaa qofkii ku guuleystana abaalmarin buu leeyahay walaal magaca Day Cabdi Ali daybow su'aalahan diyaar ma tahay uu TV-ga bulsho ku weydiinayo waan isku dayaa waxaan garanaya waa su'aal diini iyo maadi tay noqotaba lagu siin doono abaalmarin aad ku farxdo su'aashan ku weydiinna waxa weeye maxaa loo yaqaanaa raxanta garanugta
raxanta garanugta waxa loo yaqaano goosan wuu garan waayey su'aashii raxanta garanugta waxa loo yaqaano daawadayaal weli waxaad socdaa su'aalihii aad ka daawanayseen tiifiga caalamiga ee bulsho si bulshadiisa oo waxyaabo ay xiiseeyaan mar walba uu ugu xiiseeyo oo loo soo gudbiyo walaal magacaa walaal aadan abdaan aadanow su'aal baa lagu weydiinayaa su'aasha haddaad ka jawaabto waxaad heli doontaa abaalmarin lacageed diyaar moo tahay haa diyaar waxaad noo sheegtaa haweenaydii ugu horraysay ee ka shahiida islaamka haweenaydii ugu horraysay ee ka shahiida islaamka hinda wuu garan waayey su'aashii aan weydiinay walaal magacaa khadar aadan maraadha khadar aadanoo su'aal ciyaaraha ayaan ku weydiinayaa haye balweydii waa xagga ciyaaraha hadda koobkii lagu qabtay waa koobkii adduunka argentiin lagu qabtay waxaa jirtay koox ka socotay qaaradda afrika oo wacdara weyn ka muujisay kooxdaasi waxay 3-0 ku dhufatay dalka mexico ciyaarta kale oo ay reebtayna waxaa jarmalka kooxdaa magaceeda noloshiisa dalka ka socotay dalka ka socotay gaanaheed wuu garan waayey su'aashii aan weydiinay daawadayaal weli waxaa socda barnaamijkaas su'aalaha la'aantii muu suurtogaleen waxaa noo suurtogeliyey carwada caanka ee la yidhaahdo salaama fashion style iibinta waa dharka ragga iyo carruurta burco ayay ku taallaa walaal magacaa iidow su'aashan haddii aad ka jawaabto waxaa lagu siinayaa abaalmarin lacageed iidow diyaar moo tahay diyaar baan ahaa su'aasha lagu weydiinayaa iidow waxaad sheegaysaa hadda waa su'aal ama diin iyo maadi tay noqoto sheeg sannadkii ugu horreeyey ee la soo saaro xanjabuufka sanadkii ugu horreeyey xanjabuufka la soo saaro wuu garan waayey ciid daawadayaal waa barnaamijkii su'aalaha oo qofka su'aasha ka jawaaba uu helayo abaalmarin magacaa maxamed cabdiyow su'aashan ayaanu ku weydiinaynaa waa su'aal diiniya waxaad noo sheegtaa waa sheeg madaxweynihii ugu horreeyey ee islaamka wuu garan waayey su'aashaasaan ku weydiinaynaa sheeg madaxweynihii ugu horreeyey ee islaamka bismillahi raxmaan raxiim magacay waa khaalid salaam xasan haddaan isku dayo su'aashaas jawaabteeda waxa weeyaan madaxweynihii ugu horreeyey islaamka kuley waxaa rasuulkeenni maxamed sala allahu calayhi wasallam su'aashii rasuulku diinta islaamka oo dhan dunida loo soo diray laakiin islaamka madaxweynihii horreeyey yeesheen walaala magacaa xirsi cabdallow sheeg madaxweynihii ugu horreeyey ee islaamku uu yeesho abubakar sidiiq inankaa su'aashii aan weydiinnay wuu gartay madaxweynihii horreeye islaamku wuxuu ahaa abubakar sadiiq iga guddoon abaalmarintii ay ku siisay waa bulsha t v waxaana maalgelisay carwada la yidhahdo salaama fashion style guddoon wacan daawadayaal weli waxaad socda barnaamijkii su'aalaha ee abaalmarinta lagu bixinayey su'aasha qofka markuu sheego oo sida tooska uga daawanayseen tiifiga caalamiga ee bulsho magacaa guuleedow su'aashan lagu weydiinay diyaar moo tahay guuleedow waxaad noo sheegtaa sheeg asxaabiyaddii ugu horraysay ee disha qof gaal ah asxaabiyaddii ugu horraysay qof gaala disha garan maayo guuleed waa garan waayey weli waa su'aalihii walaal magacaa magacayga koostahir baa laydhaa koostahir su'aal baa lagu weydiinayaa haddii aad heshana waxaad heli doontaa abaalmarin koose waxaad sheegtaa sheeg magaca samada labaad waxaa la yidhaahdaa samawaatlmicraaj baa laydhaa ta labaad sowlmaya tan ku xigta sheeg magaca samada labaad waxaa la yidhaahdaa waa tii nebi muuse ku tukaday sugaan xasuuste waxaa la yidhaahdaa maysama adduunyaha waa tane waxaa la yidhaahdaa wallaahi waan aqaanay maanta soori waan ka xumaaye waayahay su'aasha jawaabteedii way garan weyday
waxaad sheegtaa magaca walaalo axmed xaggan eeg axmed yuusuf waxaad sheegtaa sheeg magaca samada labaad magaca samada labaad marka macrabiyan ku sheegay mise magaca samada labaad eeg adu magac ma leedahay sheeg magaca samada labaad samada labaad waxa loo yaqaanaa carshi wuu garan waayey weli waa barnaamijkii waxaana noo suurtageliyey barnaamijkan oo la'aantii ahwada aanu galeen waa carwada la salaama fashion style oo ku taalla magaalada burco walaal magaca maxamed xaasho waxaan u maleeyaa xagga dhaqanka aad baad isugu fiicantiin waxaad sheegaysaa su'aashani waa su'aal dhaqana waxaad sheegaysaa sheeg magaca loo yaqaano raxanta deerada magaca loo yaqaano raxanta deerada yaa ma garanayo anigu deero ma aqaan wuu garan waayey su'aashii magaca walaalo maxaa ismaaciil hal deero maxaa la yidhaha maxamed baa tiri sooma maxamed ismaaciilow sheeg magaca loo yaqaano raxanta deerada bismillahi raxmaan raxiim arigaad wuu garan waayey su'aal caadi oo jilicsan waa nasiib waxani magaca maxamedow goormuu dhashay madaxweynaha xilka loo doortay madaxweyne muuse bixi sanadkuu dhashay sheeg muuse bixi waa madaxweyne muuse bixi wuxuu dhashay wuu garan waayey waxaad sheegtaa sanadkii la soo saaray xanjabuufta wuu garan waayey magaca walaalo aniga maxamed maxamedow su'aasha lagu weydiiyo haddaad garato lacag baa lagu siinaya abaalmarina waxaad sheegtaa magaca labaad ee loo yaqaano samada magaca labaad ee loo yaqaano samada ma cirka egsamooyinku waa toddoba sida qur-aanka kariimka ilaahay inoogu sheegay magaca labaad ee samada carshiga wuu garan waayey daawadayaal weli waxaa socda barnaamijkii su'aalaha waxaa noo suurtageliyey waa carwada la yidhahdo salaama fashion style oo ku taalla magaalada burco tv-ga bulshana waad ka daawanaysaa walaal magacaa waxaan ahay maamulaha carwa khayraad farnijar cabdinuur xuseen cabdilaahi cabdinuurow su'aal baa lagu weydiinaya haddaad garato lacag baa lagu siinaya abaalmarina diyaar mootay soo daa cabdinuurow waxaad noo sheegtaa sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay nebi aadan calayhi salaatu wasalaam 5 goor baa lagu xusay wuu garan waaye su'aasha haddaad garato waa nasiibka waxaan ku yidhi waxaad sheegtaa inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay nebigeennii aadan calayhi salaatu wasalaam ma garanayo way garan weyday su'aasha aan weydiinay daawade weli waxaynu bartamaanka ka jirnaa waa barnaamijkii su'aalaha ee ka baxayay tv-ga caalamiga ee bulsho iminkana waxaanu joognaa suuqii weynaa adeer magacaa asmaa maxamed cabdi asmaay su'aasha lagu weydiinay diyaar moo tahay asmaay su'aasha lagu weydiinaya waxaa weeye sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay nebigeenni aadam calayhi salaatu wasalaam 12 way garan weyday su'aasha aan weydiinay daawade barnaamijka waxaa noo suurtageliyey la'aantiina aanu socdeen waa carwada caalamiga salaama fashion style ee bartamaha magaalada burco ku taal daawadayaal weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii su'aalaha ee bulshada aan weydiinayay qaybada kala duwan walaal magacaa cabdinaasir oo su'aal baa lagu weydiinaya haddaad heshana waxaa lagu siin doonaa lacag abaalmarina diyaar moo tahay cabdinaasirow maxaa loo yaqaanaa raxanta garanuugta wuu garan waayey inankaasi daawade waa barnaamijkii su'aalaha oo noo suurtageliyey carwada la yidhahdo salaama fashion oo si toosa uga daawan doonto tv-ga caalamiga bulsho walaal magacaa maxamuud salebaan oo su'aal baa lagu weydiinaya haddii aad su-aasha ka jawaabtana abaalmarin baad heli doontaa diyaar ma tahay waxaad noo sheegtaa hadda waa maxamuudow magaca loo yaqaano samada labaad waa 7 samo sida qur-aanka kariimka inoogu sheegay
ilaahay subxaana wa tacaala samada labaad magaceeda noo sheeg samada dunya wuu garan waayey cawlow waa barnaamijkii su'aalaha xagga ciyaarana waa isku fiicnayd baan u maleeyaa waxaad noo sheegtaa koobkii lagu qabtay dalka Argentina 1978 waxaa jiray xul Afrikaana ama dal Afrikaana oo wacdara ka muujiyay koobka xulkaasi wuxuu 3-0 ku dhuftay dalka Mexico wuxuu ciyaar barbarana la galay dalka Jarmalka oo markaa haystay koobkii 74 haddaba waxaad noo sheegtaa dalkii uu ahaa ee Afrikaanka ahaa ee wacdaraha ka muujiyay qaaradda Afrikana magaceeda kor u qaaday magaciisa wuxuu ahaa Ghana awli waa garan waaye daawada wali waa iminka gabagabadii baan ku jirnaa waa barnaamijkii su'aalaha waxa noo suurtageliyay la'aanteedna aanu hawada galeen waa carwada caanka ee leedo Salama Fashion Style oo ku taala bartamaha halka aad si toos ah uga daawanaysaana waa TV-ga caalamiga Bulsha TV anigoo Cabdiweel Awdiriye su'aasha waxaan weydiinayaa kan magaca Maxamed Axmed oo su'aashan waa su'aal miiga ku saabsan maxaa loo yaqaanaa oo reemigu u yaqaanaan qalax waxay u yaqaaniin bismillaahir rahmaanir rahiim isku day su'aashan ka jawaabo waxay u yaqaaniin marka awrka yani afkiisa lagu xiro qori la galiyo marka la qalaxo si aan u dhaqdhaqaaqin su'aasha wali waxba ka dhiman waa hasha geela si uu qalaxo oo lagu kala qabto lagu kala qaado weeyo su'aashaas geela la isticmaala su'aasha waxba ka dhiman magaca Xamsa Cabdi Kariim baleeyahay Xamsa Cabdi Kariim su'aasha waad maqlaysay qalax maxay u yaqaanaan reemigu qalax ba mise waa qalax qa iyo a iyo la iyo a iyo meen ku qalax hato laba mid waa jirta midna waa qalax midna waa qalax oo kala laba marka taa u jeeday fansi ma qalax ba mise waa qalax waxa weeye hasha marka ay neefka diido ama ay gudlan weydo ee lagu qalaxay lagaga qalaxa neef oo gartay magacaaga muxuu ahaa Xamsa Cabdi Kariim waxaan siinay lacagtii abaalmarinta ahayd xamsow adoo muraayad daawanaya hambaliyaan ku leenahay barnaamijkaas insha Allah mar kalena waan kulmi doonaa daawade waa su'aashii u dambeysay ee aanu ku soo khatimaynay sida iyo kulan dambe daawadayaal waa gabagabadii waa su'aashii aan islahayn tan ah ugu dambayso halkan taaganayna waa carwadii noo suurtagelisay barnaamijkan inuu si toos ah noogu suurtagalo oo aanu ka sii dayno TV-ga caalamiga ee Bulsha TV si dadweynaha wax ugu soo celiyo si dadweynuhu ay u xiiseeyaan su'aalaha aan weydiinayno su'aaluhu waxay isugu jiraan diini iyo maadi su'aashan aan iminka weydiinayaa waa su'aal waa nin dhalinyara xagga ciyaaraha waxa laga yaabaa inuu ku fiican yahay waa su'aal ciyaaraha haddaba halkan soo istaag waxaan ku weydiinayaa ciyaaraha weliba xulalka adduunkan ku weydiinayaa dalka loo yaqaano Ingiriiska waa xulalkiisu waxay ahaayeen xulal aad u soo maray oo fiican balse taariikhda marka dib loo raaco hadda waa dib loo raaco xulalka Ingiriiska badana ninka madow aad uga muuqan jirin oo ninka cadaanka ayaa lagu hormarin jiray ninka madow haddaba waxaad noo sheegtaa iyadoo ay arintaasi jirtay marka oo yani xag midabta koora ninkii madoobaa hadda waa ninkii madoobaa ee xul Ingiriisa hadda xul Ingiriisa u safta kabtanna u qaata oo meel sare marka ka gaara inuu xulka Ingiriiska isagoo nin madow ah oo Ingiriiska tiri horta da'da maan jirin laakiin haddii aan isku dayo taariikhda dib u raaco waxaan u malaynayaa ninkii ugu horreeyay ee madow kabtan u qaata xulka Ingiriiska inuu yahay ninkii Manchester u ciyaari jiray ninkii ciyaari jiray Manchester ahaa ma jooga wuxuu ahaa Manchester u ciyaari jiray difaac u qaadan jiray su'aashaas inankaasi balugu cilniya waxa weeye Manchester wuu ciyaari jiray halkaas waad ka sheegtay laakiin waxaan ku magacii lambarka uu qaadanaya xitaa
lambar caana ayuu qaataa iminka misal ciyaartoyda haddaan kuu sheego Messi dalkiisa muxuu qaataa 10 Cristiano muxuu qaataa 7 haa haddaba ninkaasi xulkiisa lambar buu qaadan jiray nin madow buu ahaa kabtanka xulka dalka Ingiriiska laga dhigay sheeg ninkaa horta sidaan markii hore u sheego taariikhda beriga ma jirin laakiin haddii dee 4-3 ahaan loo xisaabiyo taariikhdaasi waxay noqonaysaa aba ninkaasi lambarka xidhani 3 magacaagu muxuu ahaa cabdiraxmaan su'aashii waad garan weyday lambarku qaadan jiray horta kooxdu ahaa wuxuu ahaa Man United lambarka afraad buu qaadan jiray Bulinji baa la odhan jiray marka barasho wanaagsan xiisa dambe tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid oo xiisa badan waxaan idinkaga tagaynaa idinka intaana daawanaysa ee af Soomaaliya ku hadashaba waa Bulsho TV waa farsamadii habeyntii editingkii farsamayaqaanka injineerka Yaasiin Balbalaashe waa anigoo Cabdiweli Awdiriye Guuleed Bulsho TV isarag dambe oo xiisa leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh